waxaa xilkii laga qaaday taliyihii ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyadoona saacada kadib la magacaabi doono taliye cusub oo uu yeelan doono hoggaanka ciidanka booliiska. soo dhawaada saaxiibayaal, xogtan ayaan doonayay isbedelkan lagu sameeyay hoggaanka ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Cumar Guxayaan hadii uu muuqaalkii soo gaarina saaxiibadana la sii wadaaga qaybta hoose ee faaladan aragtidina nagula wadaaga. marka la soo dhawaada saaxiibayaal, Sarayagaas Sulub Axmed Firin oo markii uu dalacaad helay kadib xilkii laga qaaday xil cusubna loo magacaabay. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayuu ahaa Sarayagaas Sulub Axmed Firin, waxaana loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka hawada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii xilkii taliyaha ciidanka booliiska laga qaaday, sidoo kalena dalacaad uu ka helay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana la warinayaa in arrintan dhowrkii maalmood ee ugu dambeysay ay soo socotay oo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka ay ka wada xaajoodeen, sidoo kalena ka hadleen. ra'iisul wasaaraha ayaana in badan oo kamid ah ehelkiisa ay ku eedeynayeen, gaar ahaan jufadiisa hoose, in si gaar ah xilalkii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ay lahayd guud ahaanba dadka uu matalo uu ku koobay qoyskiisa oo kaliya. waxaana la wariyay in maalmihii la soo dhaafay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu kulamo gaar ah la qaadanayay ra'iisul wasaaraha si uu kala xaajoodo in dhinaca kale dadka eedeynta u soo jeedinaya ay ka helaan dowladnimada Soomaaliya boosaska ay ka doonayaan, si gaar ah halka reerka uu matalo ra'iisul wasaare Xamse ay ka leeyihiin dowladda dhexe. ugu dambeynna waxaa xilkii laga qaaday generaal Sarayagaas Sulub Axmed Firin oo hadda ah wasiir ku-xigeen wasaaradeed, waxaana sidoo kale xilkaas la filayaa in goordhow loo magacaabo mid kamid ah saraakiil si weyn loo hadalhayay maalmihii lasoo dhaafayna baraha bulshada u haystay. waxaana sidoo kale la filayaa in shirka golaha wasiirada ee khamiislaha ah oo saacado un ay naga xigaan marka uu Muqdisho ka furmo lagu soo bandhigi doono amba ajendayaashiisa ay kamid yihiin magacaabistaas oo ay ugu horeyso in ay sameeyaan kadibna ay gudagalaan waxyaabaha kale ee shirka khamiislaha looga hadlo oo ah xaaladda guud iyo waxyaabaha xukuumadda toddobaadkii hore ay ka hadashay, wixii ka qabsoomay, waxa ka qabsoomi waayay, caqabada hortaagan, iyo sidoo kale haddii ay jiraan xeerar ay soo kordhiyeen wasiirada ama wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda. dadka sida weyn loo hadalhayo in magacaabistiisa ay soo bixi doonto waxaa kamid ah generaal Asad Cabdullaahi Cusmaan Diyaano, kaasi oo maalmihii lasoo dhaafay isaga iyo xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni ay ka dhex taagneed shaqaaqooyin siyaasadeed, gaar ahaan magaalada Boosaaso. xaalad ka dhalatay siyaasadda ka dhaxeysa labadaasi shakhsi ay sababtay in dadka qaar ay caqabad ama walaac ka muujiyaan xaaladda amni ee magaalada Boosaaso. Diyaano waxa uu horay u ahaa taliyihii ciidamada BSF ee Puntland, waxaana xilkii laga qaaday isaga oo weliba shaqadiisa sii wata. markii xilka laga qaaday kadibna waxa uu ka soo horjeestay xilka qaadistaas, taasi oo keentay in ciidamo isagoo taabaxsan uu ka samaysto deegaanada kale ee Puntland. Boosaaso oo ay ugu xoogan tahayna waxay amar ku bixiyeen ciidamadaas, gaar ahaan kuwa isaga taabaxsan, in wax dhaqdhaqaaq ah oo gaadiid soo degaya iyo kuwa kale ee ka baxay ama ka dhex shaqeynaya magaalada Boosaaso aysan jirin. dadka ka agdhow hareeraha garoomadana ay ka fogaadaan si lagaga dhibaato ama dhibaatada ay kaga fogaadaan, taasi oo ka dhalan karta khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni iyo sidoo kale Asad Diyaano. marka laga soo tago xilkaas, waxa uu sidoo kale u tartamay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland, wallow markii dambe uu ku guuleysan waayay, sidoo kalena lagaga adkaaday doorashooyin ka dhacay magaalada Garowe. waxaa la filayaa daqiiqado yar kadib inay soo baxdo magacaabista Asad Diyaano oo loo magacaabayo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. haddii aysan wax isbedelin, waxaa dhici karta in taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed si rasmi ah uu u noqdo, inkastoo xukuumaddu ilaa iyo hadda aysan ogeyn ama aan la ogeyn cidda ay u magacaabi doonto taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed kadib markii xilkii laga qaaday Sulub Axmed Firin, sidoo kalena helay darajada Sarayagaas. wuxuu kusoo kordhay saaxiibayaal marxaladana barnaamijyadeena wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa.